السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij kale oo cusub. barnaamijkeenii hore oo idinla wadaagay oo ku saabsanaa cibaado aad u yaab badan ama aad qariib u ah oo ka jirta dalka Hindiya oo ahayd inay caabudayaan dooliga ama jiirta qofba sidoo u yaqaano. barnaamijkaas intaan diyaarinayay oo aan baaritaankiisa iyo daawashada fiidiyoyaalka laga soo duubay aan ku jiray, waxaan arkay dhaqamo kale iyo cibaadooyin aan aad ula yaabay, laakiin aan kusoo dari waayay barnaamijkii hore maxaa yeelay waxaan diidayay inuu barnaamijka aad u dheeraado. maanta waxaan go'aansaday inaan qaybo ka mid ah cibaadooyinkaas iyo dhaqamadaas aan ku arkay intaan baaritaanka sameynayay ama aan daawanayay fiidiyoyaashaas inaan isku soo aruuriyo oo idinla wadaago. Hindiya waxay ka mid tahay wadamada aadka u yaabka badan marka dhaqamada xagga diinta la fiiriyo. sidaad ogsoon tihiinba lo'du waxay ka mid tahay waxyaabaha muqadaska ka ah agtooda ama ay caabudaanba. arrintaas aniga uguma cusbayn maxaa yeelay horaan u ogaa in hinduuska ama hindida si guud ay lo'da ama caabudaan ama ay wax muqadasa ka tahay agtooda, laakiin waxaan la yaabay heerka ay gaarsiiyeen iyo meesha ay ka joogto oo aanan marnaba filanaynin. dadkan aad u jeedaan hadda meesha la jiifinayo waxaa lagu dul fasaxay lo durdurinaysa oo qulqulaysa aad u tiro badan si ay u barakaystaan. waa dad dhalinyaro ah oo maalan tusaale ahaan raadinaya inay barako iyo waxyaabo lamida ka raadinaya. sidaa daraaddeedna waxaad u jeedaan sida dhulka inta loo dhigay wejiyada dhulka u dhigeen ayagoo isduleynaya lagu soo dareeriyo lo, kadibna ay qoob kala dhacayso oo ay dul marayso. bal si fiican ugu fiirso. dadkan sidaana loo jiifiyey hadda labada dhinacna saf dheer oo dadaha ka taagan si lo'du si daaragti ugu dul marto ama toos ugu dul marto dadkaasi. intooda badan waa dad dhalinyaro ah oo laga yaabo inay leeyihiin riyooyin mustaqbalka ku saabsan oo ay jeclaan lahaayeen. sidaa daraaddeedna waxay rabaan inay barakaystaan lo'daasi si ay riyadoodu run u noqoto. bal aan fiirino qaabka loo dulaynayo iyo qaabka loogu dulmarsiinayo lo'da. ku fiirso. subxaan allah. waxaan oo lo ah oo miisaankeeda laga yaabo halka mid inuu ka badan yahay 450 kilogram ama 500 kilogram inuu gaarayo ayaa la dul marsiinayaa dadkaas. waxyaabaa la weydiiyey waxaa ka mid ah inay dhaawacyo iyo wax ka dhashaan iyo wax lamid ah. marka waxay yidhahdeen maya, wax dhaawaca haba yaraatee oo soo gaara ma jirto. hadday dhacdo in dhaawac soo gaarana waxaa lagu daaweeyaa maxaa la yidhaahdo waxyaabaha saxarada lo'da iyo kaadideeda ayaa lagu shushubayaa meesha, kadibna waa daawoobayaan. saxarada iyo sheekada ku saabsan iyo kaadida lo'da waa arrimaha yaabka badan ee aan ku arkay barnaamijkan ku saabsan lo'da caabuditaankeeda ay hindida sameeyaan. fiidiyoga hadda qaybaha dambe waxaa ku arki doontaan ayagoo iskugu yimid meel lo'da saxaradeedii ay ku soo aruuriyeen, kadibna ay sameynayaan xaflado iyo maxaa la yidhaahdo waa kaafiri. caruurtaas hadda waxay ku cayaarayaan waa lo'da maxaa la yidhahdo meeshii ay ku hoyatay wixii ay uga tagtay. ma ahan ciyaalkan yaryar oo kaliya ee waxaa sameynaya dhammaan dadka tuuladan ku nool oo dhaqankan waa dhaqan diineed, waa xaflado, waa maxaa la yidhaahdo. hadda nimankan waxay ka hadlayaan inay tahay wax wanaagsan oo faa'iido leh. waxyaabaha hindiya hadda intii cudurka safmarka u dilaacay ay sheegayaan waxaa ka mid a in lagu daaweynayo cudurkaasi waxyaabahan hadda aan sheegayno oo lo'da ay meelaha uga tagta. markaas meeshaas iskugu yimaadeen caruur iyo haween la iskugu keenay iyo dad waaweyn, niman intaba. kadibna waxay ku xafladeynayaan inay waxaas wasaqda ah oo aadka u urka badan oo qurunka badan inay dhex galaan, kadibna qof walbaaba uu raadinayo in riyadiisa mustaqbalka u rumowdo. meel xun ay wax ka raadinayaan. dadkaas aad u jeedaan kulli oo dharka iska bixiyey waxay dhex taagan yihiin dhiiqo laga soo aruuriyey meelo kala duwan oo lo'da lagu xareeyo, kadibna waa kaafiri. madaxyaday saaranayaan. midka inta ugu badan la dul saaro wuxuu aaminsan yahay inuu faa'iido ugu badan helayo. si isu galayaan u fiirsanayaan. ninkan oo kale iyo dadka meesha taagan waxay ka hadlayaan, waxay leeyihiin waa يعني waxyaabo khayaali ah oo maskaxdaada ay rumaysan karin. fiirso midkaas wuxuu ku faraxsan yahay madaxa loo saaray lo xarkeed ama saxaradeed. subxaanallah. waxay leeyihiin wuxuu ilaalinayaa jirka
ayuu wuxuu ka ilaalinaya cudurrada iyo waxay aaminsan yihiin inuu u noqonayo protection ama ximaayo inuu u sameynayo ama u ilaalinayo. u fiirso waxa dad meeshan iskugu yimid ee wasaqdaas dhex taagan. hindiya hadda ka hor waxaa maqlay in dad muslimiina loo laayay oo loo dilay inay lo qasheen awgeed, maxaa yeelay lo-da agtooda waxay ka tahay wax muqadas ah. muslimiintana waxay u arkaan inay ku xadgudbayaan waxyaaba ay aaminsan yihiin. sidaas darteedna marar badan waxaa maqalnaa waxyaaba akhbaarta lagu soo sheego ama newska oo ku saabsan dad muslimiina oo hinduusku ay dileen, sababtay u dilayaan ay tahay inay lo qasheen. ಇದನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. u fiirso dadkan waa ka xumahay boqolkiiba boqol horta inaan yani dadka qaar laga yaabo inay aada ugu yaqyaqsoodaan amaba ay mutag soo dhaafo. waxa dadkaasi ku dabaalanayaan wax aan sheegi karna ma ahan, waa waxaad la yaabaysid. waxbay akrinayaan, bal dhegeyso waxbay sheegayaan. sida ugu dabaalanayo fiiri. meeshan waxaa ka jira dhaqamo aadan marnaba suuraysan karin ama maskaxdaada soo geli karin. waa waxyaabaha aan la yaabay ka mid tahay. dadkaasi markaad fiirisid yacni warbaahinta reer galbeedka iyo dhammaan warbaahinta ka hadlaysa ee dunida, cid soo qaadanaysa ama dhaleecaynaysa ama cambaareynaysa ma arkaysid. muslimkana markaad aragtid waxaad arkaysaa iyagoo lagu dhaleecaynayo waa saan iyo xagga yihiin, waa dad xun, waa dad saan yeela, yacni sida loo suuro xumeynaayo ama loo xumeynayo sawirkooda waad dareemaysaa dadka muslimka meel kasta ay joogaan. laakiin dhaqamada noocooda miidiyaha ama warbaahinta reer galbeedka markaad daawato cid ka hadlaysa ama wax ka qoraysa oo ma arkaysid. inta badan agtooda waa la ixtiraamayaa, in la ixtiraamo oo laga dambeeyo oo aan la faragashan ayay aaminsan yihiin. laakiin muslim haddaad tahay waxay ku dabaalanayaan qurun ayay ku dabaalanayaan. aad ugu faraxsan yihiin, waa dhaqan diimeed. markay cabaar wadaanba waxay sameynayaan, way duceysanayaan. cunugan yarkaa oo meesha la dhex taajiyey waxaasuu dhex fadhiyaa, marka waxaa la moodaa inuu ku dhibaatoobay. marka qaar qufac iyo isagoo waxaa arkaysaa xaaladiisa ay adag tahay, way duceysanayaan. hadda hindiya waxaa dhacday in number aan hadda garanaynin oo aada u badan uu ku dhacay cudurka safmarka ah. cudurkaas wuxuu ugu dhacay webi agtooda muqadaska ah oo ganji la dhaho. ayay maxaa la yidhaahdo waxay sameeyaan xaflado ku sameeyaan. marka dhowr milyan oo qof ayaa hal mar waxay iskugu timid meeshaas webiga ah, ayagoo intooda badanba xataa aan xiran afxirkii. marka halkaas waxaa ka dilaacay cudurkiiyaa mar labaad dib uga dilaacay, oo weliba wuxuu ku dhacay nambaro ka badan waxa ay awoodda u leedahay dowladda hindiya xataa inay daaweyso ama isbitaallo u hesho. dhaqamada kale ee layaabka badan ee hinduusku leeyihiin ayagana waxaa ka mid ah gubitaanka dadka dhintay. meesha muslimiinta iyo adduunka inta badanba dadka ay aasaan ama ay maxaa la yidhaahdo meelo loogu talagalay ku aasaan. hinduusku ayagu waxay sameeyaan, waxay dhaqan u leeyihiin inay gubaan oo ay dab qabadsiiyaan jismiga qofka dhintay. waxayna ka mid tahay arrintani arrimaha ay aaminsan yihiin oo diin ahaan u aaminsan yihiin. wiilkani hadda wuxuu sharxayaa in meeshaan qofka lagu gubaayo uu dabka qabadsiin doono, qofka koowaad oo dabka ku daari doono ama dabka qabadsiinayo uu noqon doono wiilkiisa weyn ama curadkiisa oo kale. waxay aaminsan yihiin in ruuxda bini aadamku aysan marnaba dhiman oo ay qof ka baxdo oo qof kala gasho. sidaa darteedna waxay leeyihiin jismiga qofka ama jirka ama meydka waxaa loo gubayaa in naftu si fudud uga baxdo. yacni waa adoo mathalan bir oo kale iyo ama shay muhiim kuu ah oo qashin badan dul saaran yahay oo kale
soo qahday kadibna ama biyo dhex geliyey ama shaygu hadduusan gubanaynin dab dhex geliyey ee markii qolofkii kore gubtay oo kale shaygoo nadiifa lasoo baxay oo kale qaab sidaas oo kale nafta bini aadanka aaminsan yihiin waxay leeyihin jismiga la gubayaa si ay ugu fududaato naftu inay si fudud u baxdo kadibna xayawaan kasta oo kale ayay geli kartaa sida ama dooli inay gasho ama ay xayawaan kale oo kale inay gasho. intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago si dhaqamada kale oo aadka u yaabka badan ee dunida ka jira aada u ogaataan. waxaan idinka rajeynayaa inaad barnaamijkan la wadaagtaan saaxiibadiin, like saartaan iyo sidoo kale inaad subscribe nagu caawisaan si barnaamijku usii faafo. sidoo kale waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa inaad ila wadaagtaan aragtiyadiina ku aadan barnaamijta noocan oo kala iyo dhaqamada qariibka ah ama diinha ku salaysnaadaan ama sabab kaleba inaan idinla soo wadaago oon idin soo gudbiyo. haddaad danaynaysaan oo kale inaad ii sheegtaan aragtiyadiina iyo inaad danaynaysaan